بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلواتنا الكريم قاعد فران إي قلب صافية وإذن soo dhaweynaya Soomaali weyn waana idin salaamaya meel bad joogtaan maalin wanaagsan. Maanta mawduuceena waxa uu ku saabsan yahay isbedelka iyo sababaha looga cabsado. Bini aadamka waxaan jecelnahay anaga mar walba inaan ahaano kuwa ugu wanaagsan. Mar walba waxaan jecelnahay xaaladda ugu fiican. Xataa markaad tiraad leeyahay xaaladii aad rajaynaysid waa gaartay inaad sii rajaynaysid xaalad ka sii wanaagsan xaaladaasiiti. laakiin maxay ku timaadaa isbedel ay ku timaado soma markaad wax aad sameynaysid oo wanaagsan waa inaad isbedel aad la imaatid. isbedelka mararka qaar wuxuu kugu keenaa inaad ka cabsatid isbedelkaas oo aad talaabadii aad qaadi weydo. dadka qaar waxay aad uga baqaan inay isbedel sameeyaan. sababaha keenaya waxay tahay dad waxaa jiro in badan dadka waxay ka baqaan horta waxyaabaha aan la aqoonin oo isbedelkii mararka qaar aan u cadeen wax meesha ay u socdaan waxyaabaha majhuulka ana bini aadamka dabeecadiisa uga cabsadaa. isbedelka sababaha kale uga cabsanayaan waxaa ka mid ah qofkii inuu isleeyahay xaalad aad ku sugan tahay ama hadda xaalad kasii xun aad gashaa intaad wax kasii wanaagsan aad raadinaysid. cabsidaas oo keenaysa inuu talaabo qaadi waa qofkii oo meeshiisa u taagnaado. isbedelka haddii aad rabtid inaad samaysid isbedel oo aad ahaatid qofka ugu wanaagsan ama noloshaada aad waxa aad rajaynaysid aad gaarto horta koowa inaad cabsida aad meel iska dhigtaa. cabsida waa inaad meel iska dhigtaa waayo cabsida waxyaabo badan ayay kaa celinaysaa. fursado badan ayay kaa dhuminaysaa. wax badan oo aad gaari lahayd ayay dib kaaga celinaysaa. marka isbedel haddii aad samaysid waa inaad ahaatid qof geesi ah aad noqotid haddii aadan ahayn xataa waayo geesinimo ay u baahan yahay isbedelka. talaabada aad qaadaysid markii shaydaanka uu ku dhahana maxay ahaatay waxaa laga yaabaa inaad meel xun aad meesha hadda aad joogtid aad imaatid ama aad kasii xumaatid. cabsida ugu weyn dadka ay qabaan taas waa isbedelka ay u diidayaan. ay leeyihiin waxaan ka baqayaa maanta inaan noqdo meesha aniga haddeer aan joogo meel kasii xun inaan gaaro inaan imaado ayaan ka baqayaa. shaydaanka waa waxyaabaha oo dadku waswaasiya ay ka mid tahay. xasuus inaad leedahay rabb alcaalamiin ilaahigaas oon ku dayaceynin subxaana wa tacaala jalla wajalaalo oon addoonkiisa marnaba aan dayaceynin. ilaahay haddaad tala saarid isbedel allaala isbedelkaad rabtid waa samaynaysaa. talaabada keliya qaad. ha cabsanin wax dhacaya ma lahan. haddii maxay ahayd dadka isbedelka ka cabsanaya amba ku fikiraya in haddii aan sameeyo wax isbedel ah oo tallaabo aan qaado waxaan ka baqayaa ay tahay fikradooda meesha hadda aan taaganahay meel ka xun. meesha hadda adiga aad taagan tahay ama heerka adiga aad ku sugan tahay noocaad rabtid miya heerka adiga aad rajaynaysa inaad ahaatid miya. haddii ay tahay jawaabtaada maya haddaba tallaabada qaad. haddaba isbedelka samee ilaa aad ka gaartid meesha adiga aad rabtid iyo waxa adiga aad ku naaloonaysid. cabsidana jooji waayo cabsida waxyaabo badan ayay kaa celinaysaa. wax dhacaya ma lahan. haddii ay u badato markaad tallaabo qaadid waxaa dhacayo guul daro ama guul. waxa ugu xun ee laga cabsadana waxaa waaye guul darada. guul daradana sideedaba khibrad u qaad inay tahay wax aad baranaysid wax kugu soo biirinayo waana sidaas. guul darada sideedaba waa wax kugu soo biirinayo oo haddii aad wax samaysid oo aad maxay ahayd sidii la rabay ay noqon waayaan marka kaleente khibrad ayaad uga leedahay qofka aan weligiis sameynin waanay kuu sahlanaanaysaa inaad ka gudubtid waayo waxaad taqaanaa meeshii aad ka qaladay aad taqaanaa. laakiin haddii ay tahay inaad meeshaadii aad taagan tahay 10 sano 20 sano 5 sano 5 sano wax weyn waay. laakiin qofkii 10 sano iyo 20 sano ay sii tahay way kasii daran tahay soo ma. markaa cabsanin. haddii aad rabtid inaad isbedel samaysid waa inaad tallaabada aad qaadaa. waa inaad samaysaa wax walba oo aad isbedelkaas aad ku gaari kartid. heer walba oo aad rajaynaysid waxaad ku gaaraysaa inaad dhaqaaqdid oo tallaabada aad qaadid. hana cabsan waayo cabsida waxyaabo badan oo fursado ah ayay kaa dhuminaysaa. haddii aan guul dareysto
haddiidaas dhan jooji. Dad badan oo waxaa jira markay rabaan inay wax sameeyaan shaydaanka inta usoo dugaalo ka saa'id caleynaa oo fikradahoodii dhan ay yihiin kuwa diidma ah oo maanta oo dhan haddii ay saan dhacdo aniga maxaa sameynaa, haddii ay saan dhacdo aniga maxaa sameynaa, oo mar walba tallaabada intayna qaadin ka horba ayaga sameynaayo iyo caqabada sameynaayo. xaqiiqda caqabada bay imaan karaa markaa isbedel sameynaysa, laakiin caqabadahaas aamin inaad quwad leedahay aad kaga gudbi kartid. aamin inaad tahay qof raba inuu gaaro meel uu hiigsanayo oo gaari kara meeshaasaytine. qof maxay ahayd aan ka cabsanaynin waxa kasoo baxayo oo diyaar u ah markaa isbedelka uu sameynayo. waayo markaad rabtid inaad wax gaartid Soomaalida waxay dhahdaa wax aan loo dhibtoonin lama dheefsado. markaad rabtid inaad wax isbedel samaysid waa in wax kaleente aad bixisaa. noloshana saas waa sama wax bilaash ma jiro. wax walba waxaa waaye waxay leeyihiin wax la qaadanayo oo bedel ay leeyihiin. marka isbedelada waxay leeyihiin wax inaad bixinaysid. masalan wax baad rabtaa inaad samaysid, inaad hanti aad samaysid aad rabtaa, inaad aqoon fiican aad samaysid aad baratid aad rabtaa, oo naftaadii aad cilmi aad ku kordhisid aad rabtaa. waa inaad waqtigaaga aad aroorti toostaa. waqtigaaga si uu kugu barakoowa inaad wax badan aad ka faa'iideysto, inaad juhdi badan aad samaysaa, inaad dadaal badan dadka markay hurdayaan maalintii ilaa duhurkii inaad adiga waxaa waaye aad u taagan tahay cashar qaadashadaadii ood maxay ahayd xifdinaysid oo dadaalaysid ood akhrinaysid ood qoraysid oo maxay casharka aad ku jirtid. iskuul hadday tahay iskuulka aad kula haysid, haddii ay tahay jaamacad aad kula haysid, haddii maxay ay tahay ganacsi ay tahay businesskaaga aad kula haysid, oo haddii guriga xataa uu yahay aad subaxii maxay diyaar aad tahay oo waqti badan aad gelisaa, aad waqtigaagii ka faa'iideysataa. marka wax markaad rabtid inaad samaysid isbedel waxbaad bixinaysaa sooma. laakiin haddii ay noqoto isbedelaan rabaa inaan sameeyo meesheedana fadhinaya oo dadkii asaas u fiirinaya, heblaha seesaan ku noqotay, hebel suusaan ku noqday. waa ku doqonnimada inaad dadka xoola xisaabi intaad xisaabinaysid adiga oo waqti ka dhamaado adigana aad ku dhamaysatay fadhi. marka dadka khayrka waxa ay gaareen adigana waa gaaraysaa, waanad gaari kartaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa waaye adoomadiisa caadil ayuu u yahay. dadaalka adiga haddii aad la imaatid waxaa waa gaaraysaa. ha iska soo xirin albaabada. xataa hadallada waxyaabaha qaar oo isbedelka iiqaayo waxaa ka mid ah hadallada qaar oo nafta lagu dhaho. subxaan allah, hadalka aad dhehaysid noloshaada wuxuu ku leeyahay door ayuu ku leeyahay. hadalka aad dhehaysid noloshaada door ku leeyahay. haddii aad leedahay mar walba waxaas aniga ma sameyn karo, ma qaban karo, waxaad sugaysid waa helaysaa. ma qaban karo markii maskaxdaada ay ku jirto ku dhagsan tahay ma qaban kartid. laakiin markaad tahay waa qaban karaa. qof dhahaay mar walba oo aaminsan awoodiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminsan. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sii awood, caqli ayuu ku sii, garasho ku sii. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay adoonka quwadda leh marka ay tahay inaad quwaddaadii ay ka bilaabataa gudahaagii. aad tiraahid waa sameyn karaa, waxaas waa gaari karaa. qadarkiina waxaa laga qaadaa afkiina. hadalka aad dhehaysid waxaa waaye wuxuu kuu noqonayaa mararka qaar qadarkaaga ayuu noqonayaa. waxa aad dhehaysid qadarkaaga ayuu noqonayaa. haddaad tiraahdo waxaas ma sameyn karo, fikrad allaale fikradda kuugu soo dhaceyso tan ayada ku wada waay. tan ayada maxay ayd ku hogaaminaysa waa oo meesha aad u socotid ku keenaysaas darteed ayaa loo ilaaliyaa fikradaha kugu soo dhacay markaad keliga aad tahay. fikrad wanaagsan haddii tahay okay, isla markaas qalinka iyo buug soo qaado qoro. wax wanaagsan waay maasha allah tabaarak allah. waxan haddii ay tahay shaydaanku way ka cuudu bileyso. waayo waxa kugu soo dhacayo waxay noqonayaan wax caqligaaga baatinka uu rumaysanayo, wax adiga aad ku jirto. saas daraadeed ayaa xataa haddii isbedel aad rabtid loo mala awaalaa, loo malaystaa inaad ku noolaatid waxa adiga aad jeceshahay. dad badanoo waxaa jira oo ku dhahay xaqiiq ayaan rabaa inaad ku noolaado, aniga mala awaal ma ku noolaanayo. mala awaalkaas ayaa wuxuu ku geenayaa xaqiiqda ayuu ku geenayaa. meesha hadda aad taagan tahay xaqiiqo, hadda noloshaada qof walba videogan taabanayo meesha hadda aad taagan tahay maalin uun ayaad rabi jirtay inaad tahatid meeshaas aad ku naaloon jirtay. nooc waxay ka mid tahay mala awaalka ay ka mid tahay.
meeshaas aad taagan tahay. marka haddii aad rabtid meeshaas meel ka wanaagsan inaad istaagtid amba aad joogtid amba aad ku noolaatid, waa inaad fikradahaagii aad ilaalisaa ood ka dhigtaa fikrad qurux badan ood maleysataa. maleysashada subxaan allah dadka waxaa waa ma fahamsan, dad badan ma fahamsan, laakiin maleysashada wax aad qurux badan waay. caqliga baatinka ma kala yaqaano xaqiiqda iyo beenta ma kala yaqaano. marka wax adiga aad dareenka aad dareemaysid wuxuu u haystaa mar walba inuu yahay wax run ood ku sugan tahay. maasha allah tabaaraka allah, nicmo ilaahay uuna sii waay inaad maleysatid nool sida adiga aad jeceshahay adoo u nool, waxa aad ku naaloonaysid adoo heesta oo maxay ahayd niyeysanaayo isbedelkii jidkii loo maraayo gaaraayo oo sameynayo wax adiga aad rabtid aad sameynaysid. niyadaadan mar walba waxa kusoo dhacaya ahaadaan wax qurux badan, wax adiga aad jeceshahay, wax wanaagsan. hana cabsanin. cabsida waxawaa waxyaabaha bini aadanka guul darada u horseeda ayay ka mid tahay. haddii aad cabsatid wax heer iyo horumar ma gaaraysid, oo tallaabada aad qaadaysid waxawaa dib ay u noqonaysaa. cabsida way noocay badan tahay inaad ka cabsatid haddii waxaan aan sameeyo ama igu dhacaan. taas haddii ay tahay tan aad ka baqaysid, ilaahay subxaanahu watacaala ma ku dayacayo, talada saaro. ilaahayna addoonkiisa wuxuu ka helaa filashadiisa sooma. ilaahay maadaama aad wax wanaagsan aad ka rajeynaysid, wixii ma noqonayaan wax xun ma kuu soo baxaa, wax guuldaro ma kuu soo baxaa. maleyso, filo, ilaahay agtiisa kheyr ka rajee kana filo. haddii ay tahay inaad taas ka cabsanaysid. haddii aad wax kale aad ka cabsanaysid oo waxa ugu badan oo dadku ay ka baqaan, dadka maxay ku dhahayaan, dadka duuduub ayaga dhan kasoo qaad inayba jooginbo. marka danahaaga aad raacanaysid maadaama aadan xadgudub sameynaynin, dadka kasoo qaad inaanay joogin xisaabtaada haba kusoo darin. dadka maxay ku dhahayaan haddii ay tahay kuwa isbedelada kuu diidaayo oo aad ka cabsanaysid, dadka waxay dhihi doonaan, dadka maxay dhihi doonaan haddii ay tahay hadafkaaga. kasoo qaad dadka inaanay joogin, inaanay shaqo kugu lahayn, waana sidaas dadka shaqo kuguma lahan. dadka waxaa laga yaabaaba inaanay ku arkeynin, inaanay kaa wareynin, oo adiga aad ku mashquulsan tahay oo aad leedahay maxay dhahayaan, maxay iga sheegayaan, haddaan waxaan sameeyo, haddaan waxaas bilaabo. maya, waxa allaala waxaa jeceshahay bilow. wax walba oo aad rabtid noloshaada inaad sameysid waxawaay samee. isbedelkana ha ka cabsanin. haddii aad rabtid inaad meeshaada sii joogtid waxawaaye gooni waay, laakiin haddaad rabtid meesha aad joogtid meel ka wanaagsan, jidkii mar aad ku gaari lahayd, ilan waa taqaanaa jidkii loo maraayo. qof walba meesha u socdan waa yaqaanaa sooma. qof walba dunida wax uu ka rabo waa yaqaanaa. soo hadafka adiga aad ka leedahay waa taqaanaa, sida aad u noolaanaysid waa taqaanaa. jidka aad u maraysid waxaa inaad martid waay. haddii dhaqaale ay kaaga xiran tahay, in badan dadka dhaqaalaha ay ku marsiiyodaan. dhaqaalaha sax door weyn ayuu nolosheen ku leeyahay. ilaahay bari subxaanahu watacaala inuu ku siiyo waxa aad jeceshahay. waa ilaahay haddaanu ku siinin ma sameyn kartid dhaqaalaha, ma sameyn kartid si walbo dadaal iyo juhdi aad u lamaatid. ilaahay subxaanahu watacaala risqiga haddaanu samada kaaga soo dejin ma helaysid. marka ilaahay bari. jidkii loo maraayayna mar oo dadaalkii la imoomaha ilaaha barinaa. gurigeyga fadhinaa maaha, raadi meeshaad ka raadinaysa waa taqaanaa. wax allaal waxaad baratay ku shaqeyso. haddii aadan wax baranin waxawaa xoogaaga maal xoog ayaad leedahay, ku shaqeyso. mararka qaar adoo wax baratay oo maxay ahaydey meel sare waxbarashadii ka gaar ayaa waxaa imaanaya waqtiyada imtixaanka oo ay tahay inaad xoogaaga aad ku shaqaysataa. dhihin asagana anoo noocaas anoo wax bartay maa xoogayga ku shaqaysanaa, dhihin shaqada wax xalaal waay. maasha allah tabaaraka allah. marka isbedel haddii aad rabtid, gudahaaga ka bilaabmo. isbedelka wuxuu ka bilaabanayaa nafta, ayuu ka bilaabanayaa gudihii ayuu ka bilaabanayaa. tallaabadana waad qaadaysaa adoo cabsanaynin, adoon filaynin wax xun oo natiija adoon sugeynin. way qurux badan tahay, wayna fiican tahay inaad darasid waxa aad sameynaysid. markaa isbedel aad rabtid, meesha aad u socotid, maxaa kaaga imaan karo, inaad qorshahaaga iyo waxaaga aad diyaarsatid oo darastid ood ogaatid. laakiin ha cabsanin. cabsidaaseeti in ayna noqonin mid maxay ahayd meeshaada kugu dhajiso, oo aad ahaanin qof meeshiisa ku dhigan oo dhaqaaqaynin. yaysan kaa dhigin. waxaan ku rajeynayaa isbedel aad u qurux badan. aad ku mahadsan tahay daawashada aad daawanaysay, waqtigaaga qaaliga aad siisay video. video waxay intaan kulmi doonaa waxaan idinkaga tegayaa
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاو.